qabriga allaha u nuuriyo annagana samir iyo iimaan allaha naga wada siiyo tacsiyo kadib waxaan aad uga xunnahay mas'uuliyiinta nagu matasho systemka dawliga qaarkood hadallada qaar ay ku dhaqmeen oo ahayd wax aad loogu xumaaday ma ahayn dad oo maanta la dhahayo waa dad ku fiicnaa mihnada caafimaadka ama dhaqaatiirtii ama isbitaalkii uu ku geeriyay generaalka waxay ahayd haddii report la soo saarayay guud ahaan xukuumadda ama dowladda federaalka inay report soo saarto ama waxaan ka sugaynay in report ay soo saaraan isbitaalka laakiin nasiib daro si fudeed ay ku jirto waxaa si fudud loo yiri generaalka maqaadiir rabbi oo u dhintay sax waaye idaa jaa ajaluha laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastakhdimuun naf kasta waqtigeeday dhimanaysaa laakiin sabab ayaa jirto oo qofka markii si caadi uu dhinto in markii la dilo oo dilka xataa laba loo qeybiyo kas iyo kama loo qeybiyo mid walba xukun ka dhasho marka waxaa tuhun iyo shaki weyn aan ka qabnaa geerida generaalka markii xataa la soo qaato reportka hordhaca ah ee soo jeediyay wasiirkii caafimaadka ee dowladda federaalka waxaa ku jirtay in oo generaalka oo u geeriyooday cudurka la yiraahdo hepatitis B ayada laftirkeeda waxaa ognahay cudurka hepatitis B inuu yahay cudurrada la kala qaado marka qofka oo maxbuuska ahna xuquuqaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah caafimaadkiisa iyo daryeelka guud marka nasiib dar waxaa ah dowladda iyada qofkii ay maxbuuska u ahay gacanta ku haysay in oo u dhinto hepatitis B laftirkeeda waxaan dhihi karnaa mas'uuliyad daro weyn waaye inkastoo aanan hordhaceynin sababta rasmiga ah waxaan doonaynaa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo intaas kadib waxaan rabnaa meeshaan inaan codsi ugu dirno guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha oo ay kala horeeyaan ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Bare iyo madaxweyne Professor Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne annagoo ah ehelada iyo caa'ilada General Sheego Axmed Cali waxaan codsanaynaa oo si xoogan aan u codsanaynaa waliba mudane madaxweyne waxaan rabnaa cafis madaxweyne inaad noogu sii daaso wiilasha dhalinyarada ee la xirnaa generaalka waxaan doonaynaa cafis madaxweyne inaad noogu sii daaso oo dhalinyaradaas ay ka qayb qaataan aaska General Sheego Axmed Cali oo dhinaciisa dhulka ayaga ay u dhigaan waa sida aan ku hanweynahay oo aan idinka rajaynayna insha Allah mid kale waxaan rabaa qodob waxaa jira guud ahaan Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dowladda federaalka ay ku buraaragsanayaan rabaa halka in maanta ugu jeediyo haddii taariikhda dib loo xasuusto weerarkii General Sheego Axmed Cali gadaashiisa iyo dhammaan dadaaladii dowladda ee ahaa ciribtirka qawaarijta waxaa ku imaaday dib u dhac aad u weyn ciidankii guud ahaan waxaa ku imid rucbi iyo zulzul weerarkii General Sheego Axmed Cali gadaashiisa guul weyn oo la taaban karo ay soo hooyeen ciidamada iska daaye dhammaan waxaa halis galay dhammaan goobihii la soo xureeyay ee waqtiga badan la soo geliyay amaanta cadowga laga ilaalinaya waa nasiib dar aad u weyn mudane madaxweyne dib isku baar dhibaatooyinka iyo rucbiga iyo zulzulka ku haya dib u baar sababta ugu weyn waa ninkaas masaakiinka ah ee maanta naga hooseeyo sida xaqdarada ah loogu weeraray sababteeda ah waa ognahay waddankan waxaa joogo dad badan oo dhiig ku qabaystay oo gacmaha dhiig kula jiro oo dadka qaarkood biyaha ay cabayaan lacag ka siin jiro oo ka gadi jiray dadka qaarkood si maalinla ah kun ay u dili jireen kuwaasaa maanta sharfan guryo qasri ah inta loo kireeyey xaasaskooda ku booqda ku ilmo dhala jaamacada ku dhameeyey marka waxaa nasiib daro ahayd nin maskiin ah oo generaal ah gurigiisa iska dhex joogo in lagu weeraro askari kaaga ah ama ninku soo booqday mobile dhacay nasiib dar aad u weyn ahayd wixii dhacay waa dhaceen dib ugu malaabanayno afallahu amma salaf ayaa leenahay laakiin madaxweyne codsiga hadda aan wadano waxay tahay dhammaan inta u xiran kiiska General Sheego dartiisa maadaama ninkii oo asiga ugu weynaa ee lagu dulmiiba oo tii rabbi u timaaday oo geeriyooday waxaan codsanaynaa dhammaan walaalaha kale ee u xiran qadiyada General Sheego in cafis madaxweyne lagu sii daayo sida uu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynaynaa inta codsigana laga soo jawaabayne generaalka wuxuu noogu jiri doonaa talaagada aad ama sinta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay
55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha